wararkii ugu dambeeyay ay helayso dagaal xooggan oo khasaare geystay oo deegaanka Celaf Weyn ee gobolka Sanaag ku dhexmaray ciidanka RRU ee Somaliland iyo maleeshiya beeleed halkaas ku sugan. wararka ayaa inta ku daraya in dagaalkani uu yimi kadib markii maleeshiyada aad uga careysan dhaqdhaqaaqyada Somaliland ay ka wado deegaamada Fadhigaab iyo Ceel Midgaan ay dagaal kala hortageen ciidamada maamulka Somaliland gaar ahaan kuwa loo yaqaan RRU oo loogu talagalay la dagaalanka argagixisada. inta la xaqiijiyay 2 askari oo RRU ah ayaa ku dhaawacmay dagaalkaasi. ciidanka ayaa dhawaan xabsiga dhigay waxgarad ka soo jeeda deegaamadaasi gaar ahaan beesha ka dambeysay dagaalkaasi. warar hoose ayaa sheegay in ciidanka Somaliland ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan maleeshiyaadkii dagaalkaasi soo qaaday, waxaana haatan kacsan xaaladda deegaankaasi iyadoona horay ay deegaamadaasi ugu dagaalameen beelo-ood wadaag ah oo la doonayay haatan in dhexdhexaadin loo sameeyo. xiisadda tan ayaa noqonaysa mid weji cusub u yeelaysa xaaladda deegaanka maadaama ciidanka Somaliland deegaamadaasi loo geeyay inay u dhexdhexaadiyaan beelaha ood wadaagta halkaas ku dagaalamay. hase yeeshee beeluhu ay ku eedeynayaan in ay ciidamadu beelaha la kala safteen.